kulanto wacan oo wanaagsan saaxiibadan ku saaxiibnay janaalkeena gundhiga wararka maalin wanaagsan meel kasta dunida aad ka joogtaan daawadeel maanta waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu waaweynaa ee Soomaaliya caalamka intiisa kale wasdeedii 20 July 2019 qodobada wararkeena ugu waaweyn maanta aad ku daawan doontaan saaxiibayaal waxa ka mid noqon doona muuqaalka gabadhii fulisay qarxii ismidaaminta ay ka dhacay xafiiska gobolka Banaadir iyo xogo badan oo ka soo baxaya iyo waraysi hore u bixiso oo soo gudbin doona macluumaadyo xambaarsan waxa kale oo daawadayaal warkiina aad ku daawan doontaan qaybka taliye ku-xigeenkii hore hay'adda nabad sugidda Soomaaliya oo macluumaad badan ka bixiyay weerarkii qarxinta ay ka dhacay xafiiska gobolka Banaadir maxaa ka runaa in shakhsiyaad ka tirsan ururka al-shabaab ay awood buuxa ku dhaxleeyeen dawladda Soomaaliya macluumaadyo ku saabsan oo daawan doontaan goroba qodobadaas kuba kale oo qayb ka ah amarka al-shabaab ee ergada oo dhaqan galay iyo 2 sano ka hor oo farmaajo la siiyay liiska xubnaha shabaab ee ku jira dawladdiisa balse ma dhicin in wax laga qabto qodobadaas kuba kale ayaa daawan doontaan u diyaar goroba wararkaas oo dhameystiran saaxiibayaal inaad daawataan hadaad ku cusub tahay channelkan subscribe qaybta hoose ee comment-ga nagula wadaag aragtidaada muuqaalka gabadhii fulisay qarxintii ka dhacday gobolka Banaadir ayaa xogo badan ay ka soo baxayaan iyo waliba waraysi xilli hore ay bixisay oo hadda macluumaadyo badan laga helayo ilaa iyo hadda xogtan hayna waxa ay sheegeen in weerarkii xarunta gobolka Banaadir ay fulisay habeenay la yiraahdo Basma Cabdi Maxamed oo hay'adda agaasimaha dadka baahiyaha gaarka qaba ee gobolka Banaadir isla markaana araga naafaka ahayd saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa janaalkeena u sheegeen gabadhan ay weerarkan ay fulisay in gacan ku siiyeen gabdho kale oo caawiyay oo qalabka iyo walxaha qarxaha ka caawiyay inay isku xirto basiiro oo markii hore ku shaqeysan jirtay dhismaha guriga hooyooyinka ku yaala Xamarweyne ayaa dhawaan ka shaqo bilowday maamulka gobolka Banaadir waxayna ahayd qofka kaliya ee aan la baarin oo albaabka ka gasha gobolka Banaadir ama xafiisyada duqa magaalada u dhaadhacda dad badan ayaa muuqaalkan daawaday kadibna ka soo falceliyay ayagoo sheegay in suurtagal ay tahay in gabadhan ay ahayd qofka isqarxiyay ee qarxi ka dhacay xafiiska duqa caasimada waxaanu helnay waraysi ay dhawaanay waa waraysi sanad ka hor ay siisay idaacadda Mustaqbal ee Muqdisho ku taala markaas oo loo magacaabay xilka agaasimaha dadka baahiyaha gaarka qaba waxayna soo bandhigtay macluumaadyo ku saabsan sida ay ku naqatay ama sida loogu magacaabay xilkan ayadoo ka sheekeynaysa hadaba waraysiga ka soo koow ay bixisay ayaa taliye ku-xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugidda General Cabdallah oo shaqada laga ruqsayay ayaa asna soo bandhigay xog iyo macluumaad walba oo ku saabsan wixii ka dhacay xafiiska gobolka Banaadir 24 saac la soo dhaafay al-shabaab waxay soo saareen dhowr warbixin oo ku saabsan qarxii xarunta gobolka Banaadir waxayna isku dayeen inay marin habaabiyaan shacabka iyo in ayama warbaahintu ay siiyaan warbixino aan ku saabsaneen wixii dhacay warbixintii ugu dambeysay waxay ku sheegeen in qarxu ahaa mid lagu rakibay ama lagu diyaariyay hoolka shirka ka socday waxayna ku celiyeen in lagu talagalay ergiga qaramada midowga qaabilsan Soomaaliya danta ay ka leeyihiin ee maray habaabeynta waa in uusan fashilmin xubnaha kala shaqeeyay fulinta qarxaasi sida kuwa u fududeeyay ee dhanka amniga iyo kuwa sahlaba in gabadha walxaha qarxa gudaha xarunta ay gasho ayuu yiri taliye ku-xigeenkii hore ee NSA waxaase ilaahay mahadiis ah inaan xogtaan hore u sii hayeen oo targetka la hayay iyo waliba meesha la qarxinayo warbaahintuna hore u sii shaacisay laakiin nasiib darro dawladeenu iyo al-shabaab waxa ku jira xubno si hoose u wada shaqeeya ayuu yiri taliye ku-xigeenkii hay'adda waxa meesha isku qarxiyay waa gabar Soomaali ah oo 3 caruur ah leh ninkeedii hore ayuu isku qarxiyay hotelka Naasa Hablood 2 waxaana qayb ka qaatay fulinta iyo waliba fududeynta qarxaasi xubno muhiim u ah maamulka gobolka Banaadir sidan xogta ku hayno ayuu yiri taliyihii hore ee NSA targetka waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuriisow waxaana tala ahaan u soo jeedinayaa in baaris heer caalami ah lagu sameeyo madaxda qaranka aysan ka cajisan wixii ka dhacay gobolka Banaadir ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay waa warbixinadaan ku eeganay isqarxintii ka dhacday caasimada hadaba daawadayaal markan waxaan idin soo gudbin doonaa waraysiga sanad ka hor ay bixisay gabadha marka lagu tuumayo inay heday gabadha falkan ka shaqeysay isqarxinta arrimaha naafada aad u jecel haduu wasiir ahay iyo haduu gudoomiyaha gobolka Banaadir yahayba mar walba naafada xilli kasta qof la fariisto arrimahoodana aad u daneeyo ahay fursadahaas iyo kuwa kale badan waa ay saamix marka kuwa ayaa kamid ah shaqooyinka aad xiriiriye ahaan qabato ama xafiiskaaga uu qabto
xafiiskeena horta sidiisaba waa uu iska cusub yahay oo muddada jiraba 3 bilood haday u badatay gaarsiisan tahay laakiin waxyaabaha noo qorsheysan inaan qabano way fara badan yihiin waxa kamid ah in maxaa la yiraahdaa dadkii naafada ahaayo kala oo magaalada daafaheeda iyo gudaheeda ku kala baasan aan loo sameynin tirakoob hore aan loogu sameynin in maxaa la yiraahdaa aan waxyaabahan qaban doono ay kamid tahay oo xafiiskeena uu qaban doono in lagu sameeyo tirakoob maxaa la yiraahdaa lala socdo arimahooda la ururiyo degmo walba ay xafiis ku yeeshtaan arimo fara badan nooga qorsheysan ma jiraan marka dad kale oo iyaguna kamid ah dadka baahiyaha gaarka qaba oo ka shaqeeya xafiisyada dawladda ama gobolkaba ka shaqeeya marka laga soo tago adigoo ah xiriiryaha naafada gobolka Banaadir ma jiraan lama dhihi karo laakiin waa dad aad u kooban oo fara ku tiris ah oo xataa aan la gaareynin maxaa la yiraahdaa 8 ruux xitaa aan gaareynin waa oo dad aad u kooban min madaxtooyo ilaa gobol ilaa degmada la isku daro aad ay u kooban yihiin cadadkooda marka waxaan rajeynaynaa waxyaabaha aan qaban doono inay kamid noqon doonto inaan u ololeyna inay kamid noqdaan baarlamaanka maxaa la yiraahdaa meel walba hadii alla idmo in maxaa la yiraahdaa arrimaha naafada ay ka soo muuqato hadii alla idmo sideedaas ruux ka soo koobay waxa jira cabashooyin badan oo dadkan qaba baahiyaha gaarka ay miidiyaha ama qaybaha kale ee warbaahinada marin jireen ee ku aadan in shaqooyinka dawladda iyo xilalka la isku dhiibay oo la isku magacaababa aysan door fiican ku lahayn maadaama hadda ay sideed yihiin sidee ay ku imaatay in ay xubnaha intaas leeg ay ku yeeshaan qaybaha kala duwan ee dawladda waxyaabo badan ay ku yeeshteen waxa kamid ah in maxaa la yiraahdaa dadku bini'aadanka ma wada sinna dadka qaar ah xilgarad dadka mas'uuliyiinta dad badan waxa ku jira xilgarad wax kas jecel inay naafada hormarto arimahooda meel dheer ay gaaraan olole ay u sameeyeen waa ay jirtaa maxaa la yiraahdaa waxa jira galaangal badan oo naafada ay sameeyeen iyo dadaal badan inay mar walba xuquuqdooda u taagnaadaan oo ka qayliyaan oo ka dhiidhiyaan waxyaabaha jiro in aysan qayb ka ahayn darteed waxyaabahaas oo dhan ayaa saaciday sideedaasna hadda waa uun qiyaas laakiin tira rasmi ah oo hadda aan intaas aan dhahin ma jirto laakiin waxa waaye ugu badnaan markaan leenahay waa sideedaas inta aan hadda ognahay marka adigu ka basiira ahaan sidee ayay ku dhiirigelinaysaa maadaama aad tahay gabar dhalinyaro ah haddana markii ugu horeysay ay ku noqonayso inaad tahay xiriiryaha naafada ee gobolka Banaadir aad iyo aad ay dhiirigelinaysaa because waxa waaye arrin aan horay loo soo sameynin gudoomiyayaal badan ayaa soo maray gobolka Banaadir mana horina ma aysan u soo qabsoomin maadaama qofkii ugu horeeyay oo barnaamijkan lagu bilaabay aan ahay waxaan dareemayaa mas'uuliyad badan waana dhiirigelinaysaa waxaan rajeynayaa in wax badan arinta gobolka Banaadir oo xagga naafada inay iska bedeli doonaan insha Allah marka ma jiraan asxaabti kaleeto iyagu baahiyaha gaarka qabay xiriir ay kula soo sameeyeen iyo hawlo bilow u ah shaqada xafiiskaaga uu qabanayo oo aad bilowday dadka macnaheedu baahiyada gaarka qaba iyo asxaabta aan wada shaqeyn jirnay waa dad aan isku xirannahay aan ku imaaday meesha dadaalkooda iyo maxaa la yiraahdaa si in ay iyaga ku faraxsan yihiin oo maxaa la yiraahdaa ay juhdi walba ku bixinayeen in meel uun aan mar u soo fariista taas darteed marka waa dad aan mar walba isku xirannahay iskana warqabno hadii alla idmana gobolka Banaadirna mar walba wuxuu la sheer gareyn doonaa waxyaabaha baahi oo qabaan iyo waxa ay rabaan iyo waxa ay doonayaan in la qabto inuu mar walba la sheer gareyn doono la tashina uu la sameyn doono because waxa qofka baahidiisa asiga ayaa kaaga ogaal badan taas darteed ayaa marka waxay sababaysaa in aan ahaano dad isku xiran iskana warqaba ayagoo civil society anigoo maanta ku magacaaban xil dawladeed waan gartay marka la fiiriyo meesha adigu maanta joogto sidee u dhiirigelinaysaa ama door bilow ah ay ugu tahay dadka kala qaba iyagu baahiyaha gaarka ah laga yaabo inay qaarkood ka cabanayaan inaan fursadaha dawladda iyo shaqooyinka kale laga qayb gelinaynin marka door intee leeg ayay tani ay u tahay ama bilow intee leeg ay u noqon kartaa wax wanaagsan ayay u tahay in badan oo iyaga kamid waxa laga yaabaa inaysan quus taagnaayeen oo inay waxba u suurtagelaynin ay aaminsanayeen laakiin waxay ogaanayaan qof kasta oo dadaalo
oo xuquuqda macnaheeda dadka naafada ah in uu soo dhiciyo ama maxaa la yiraahdaa xuquuqdiisa uu helo iyo dadkiisa iyo dalkiisa waxa ka jiro inuu la jaan qaado go'aansada inuu gaari kara si walba oo xaalad walba uu ku sugan yahay ay ogaanayaan yaqiinsanayaan wayna dhiirigelin doontaa haddii alla idmo waxaana rajayn doonaa inay wax badan ka bedeli doonta magacaabistan uu sameeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir waxyaabaha hadda aad sida hordhaca u qabatay ee ka xiriiriyay ahaan kuwa ayaa laga xusi karaa as leedahay waa 1 iyo 2 iyo 3 howlaha tan iyo marka aan xafiiska imaaday aan qabtay qodobo badan ayaa jiro waxaa kamid ah inaan degmooyinkii oo kala in badan oo kamid ah aan la sameeynay xiriir inaan la fariisanay la sheer gareynay arrimaha naafada wax badan aan iskala garanay maxaa la yiraahdaa tusaale inaan gudoomiyaashii degmooyinka kulunsan oo kale aan la fariistay oo aan kala hadlay degmooyinkooda laga tixgeliyo naafada sida arrimooda wax looga bedeli lahaana aan isla sheer gareynay ma qorsheynaysaa marka inaad kulmiso guud ahaan dadka qaba baahiyaha gaarka ah si iyagu ay u soo gudbiyaan waxyaabaha maskaxdooda ka guuxaya ee ku aadan doorka ay u baahan yihiin inay bulshada ka ahaadaan aad ayaa u asibtay su'aashaas waxay ka mid tahay waxyaabaha noo qorsheysan aan ku hanweynahay in naafada gobolka Banaadir ku sugan in xitaa haddii alla idmo aan u sameeyno kala xataa meel ay ku soo gudbiyaan warbixinadooda iyo talooyinkooda ku saabsan arrimaha naafada sida wax looga bedeli lahaa waxay ka mid tahay waxyaabaha noo qorsheysan haddii alla idmo aan rajaynayna inay noo suurta gasho basiir ma jiraan caqabado iyo dhibaatooyin aad wajahayso tan iyo markii aad xilkan ama qaybtan aad ka hayso gobolka aad timid ee ku aadan xiriiryaha naafada gobolka Banaadir horta waxa waaye shaqadu waa iska bilow haddana inta inaan qabta aan go'aansaday oo aan biloobay wili ma arkin wax iga hor imaada laakiin qofka haddii wax baan qabana uu yiraahdo wuu ku tashanaya mar walba caqabad inay jiri kareyso waana suurtagal caqabada inay imaadaan laakiin waxaan rajaynayaa haddii alla idmo in inta aan ama shaqo civil society ku soo jirno ama intaan tan dawladda aan soo galay ee noqoto qofka mar walba uu shaqo ku soo jiri jiray wuxuu helayaa khibrado badan oo macnaheedu caqabadka markaas uu u kaashan karo